hal wax oo ka duwan hadeer qof walba oo hadlay ama qof walba oo rabay hadeertaan inuu hadlo waxa uu ka sheekeynaya waxa weeye barbalooyinkii uu ka sheekeynaya maalin hore baan sheegay waxa iri anagu waliba inta ka badan oo kontimeeyay qof waxa iri war hadeer inagoo dhan barbalooyinka waa garanaynaa xalkiisa hadda isku dayna ka warrama maxaa ula jeedaa waxa ula jeedaa in deegaankii hadda su'aalaha ugu badan oo la weydiinay waxay ku socdaan ninka sarkaalka ee wasaaradda deegaanka socda sababtu waxay tahay horta wasaaradda capability-geeda ama awoodeeda waa garanaynaa inta ay ku salaysan tahay ama waxay qaban karto wax walba haddaan idhaahno wasaaraddu ha qabato macquul maahan inagu horta soo bulsho jirta oo qiyam leh oo ummad ah oo wax qabsan karna ma nihin ninka odayga hadda deegaan buu ka yimi wuxuu yidhi deegaanka waxaa ka mamnuucon in dhir la jaro ugaar la dilo waa isku tashi bulsho soo maaha anigu deegaan baa laga yaabaa inaan ka imaaday ninka inuu deegaan ka yimaada laga yaabaa war inteena hadeertaan inteena hadda meesha joogtaa haddaynu wax isku darno inagu hayna soo aruurin ama bulsho dawlad isu keenkeenin haddaynu ku jahayno ka warrama dadkeena wixii dhibaato ah oo wax kasta ilaa saaka haddii hadda su'aalayna soo dhexdhiga la yiraahdo dawlad Soomaaliyeed oo guud soo loo heli kara qof walba wuxuu leeyahay saas lagu heli karaa Soomaha waxa ka wadaa xalka in hadeer gacantiina ku jira problemka waa sheegnay waxa sababana waa sheegnay maxaa u baahanahay action ama ficil inaan sameeyno in deegaanka ilaaliyo waa diiniyan weeye go'aas waxa badbaadiya ummadda iyo dadka idaaqa badbaadiya markaan waxa qabaa intaanu problemka ku mashquul lahayn dhibaatada waa dhibaatayna saameysay soo noqnoqotay yeenu marka intaynu ka sheekayno hotel dayax markaa ka baxno aysan noqon inuu qof walba uu dhankiisa wax ka abaabulo anuu hadda waxyaalaan ka faa'iideysta barnaamijka ku jira waxa kamid ahaa hadda team baan leeyahay deegaanka ayoo isku madax banaano dad khabiira ganacsato haween ay ku jiraan waxa kaliya aan sameyn karno waxa weeye wacyigelin deegaan hebel yaan la jarin haddii la jaro in lagu inform gareeyo dawladda hal la xiro yaani hadda waxaan tagay tuulooyin halkaan tuulaan aad ugu badan gareeqaan la yiraahdaa jirto aan soo maray markastana waa mahad celiya iyo tuulada ninkaas hadda uu ka yimi reemati labadu way ka duwanaayeen meelahan tagay waxay uga duwanaayeen maxay dhirna lagama jaro ugaarna laguma dilo bal waxa barbar rigtaaneen hadda waliba deegaanada ay ku badan tahay waa deegaanada Puntland marka la joogo ku kala badan yihiin dhibaatada noocaas ku kala badan yihiin hadda kilka shanaad oo kale marka tagtid dhulku waa green soo shaan oo kale marka joogtid ugaadha iyo aragti sida ay yihiin because of lama laayo ugaarta lama laayo deegaanka xaalufkiisa ruuxiisa ku wala tiro qoryaha laftigooda dhirta macnaha dhirta oo kale meelaha lagu jaro oo kale macnaha deegaanka badbaadintiisa inagu jiro mid kale soo inagu fiir waxa maqlaysaa khabiir hadda halkaan ninka hadda geeska fadhiyay ninkaasi waa uu yaraan waa rag expertise dadka lagu tilmaami karo waa rag khabiir weeye waxaan rabaa inagu iyo dadkaas la kamid wasaaradda booliska inta la hogaamiyo in bulshada ku imaa xalkii iyo wixii ninka odayga oo kala hadeertaan anigu waxaan u bixiyay dadka ay ku tilmaamaan qolada reer galbeedku scholarska dadka ay ku tilmaamaan because of waxa cilmiga lagu sheegay waa inaad taqaanin dhaqankaaga iyo baalkiga si cilmiyan inuu noola hadlay marka halka aynu aadno si aynu inoo waxeen oo badbaadsano inagoo qolo ayna wax ka sugin